لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. halkan waxaan tacsi tiiraanya leh waa lama huraane aan uga dirayna walaalkeen sheekhaynii sheekh aadan maxamuud axmed xaaji axmed oo insha allah lagu aasay magaalada Hargeysa annagoo joogna Burco. walaalkay wuxuu ahaa midaanu taariikh dheer isla soo maray oo runtii aanu soo wada nooleen waaqc badan ilaa iyo waxaanu ku wada jirnay 1979 boodinka Sheekh Bashiir aadan maxaa keenay ilaahay u naxariistay Sheekh Bashiir maxaa keenay reer Hargeysa ahaa reer ladan buu ka dhashay wuu nicmaysnaa Sheekh Bashiirna waa boodin oo wad garanaysaa iskuulada boodin kala hadiya jeeraale nolosha ka jirta waa la garanaya wuxuu halkaa uga yimi ilaahay dartii iyo inuu fidiyo dacwadda murabbi buu ahaa halkaa nagu hayay meel baanu ku wada jiray waxyaabahan ku sii xasuusta waxa ka mid ah boodinkaad aragtay qaraxa ah ayuu isniin walba iyo khamiis walba na soomin jiray muxaadaraad istaba jooga kutub istaba jooga dacwadda Burco raggii rukniga weyn oo ka aasaasay ee ku adkaayay wax rabbeeyay buu ka mid ah gaar ahaan siiro fara badan uu akhriyi jiray in fara badanna runtii wuxuu ahaa juhdi fara badan mid ku bixiya maalintii oo dhan waxaan halkaa lagu soomanaado habeenkii bariiskaa yaree kuugtu karisay saliidda noogu badiso ayaanu ku cashaan jirro oo ku suxuuran jirra khamiis walba iyo isniin walba rag buu meeshaa ku barbaariyey wuxuu ahaa nin aan fadhiisanoo juhdi badan weliba wuxuu duruusuhu noo akhriyi jiray waxaa ka mid ahayd siiradii nashaadka gelin jirtay dhallinyarada malxamatu cumar dagaaladii iyo qasawaadkii malxamatu cumar baan xasuusnaa ee filin ma jirin in facebookna ma jirin marxabada kutuba la odhan jiray oo aan ka dhicin dhaqdhaqaaqa ruuxa uu xilligaa dagaalamayey qaswaadkii uu sharxayey oo aad u xiiso badnaa ayaan garanaya ilaahay ha u naxariisto waxaanu isla soo marray xalane xamar markaan tugnay shaqadii qaranka ardaydii loo qaaday xalane muu fadhiisanayn saasunbuu akhriyayey juhdi adag buu geliyay meeshaasoo adkeedoo tababar milatari lagu jiroo dhibaato badnayd haddana wuxuu ahaa mid aan ka fadhiisan dacwadda markii dambena dulcad iyo xaggaa iyo qaxootigiina kamuu joojin sidii unbuu u waday ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay ka abaalmariya waxaan ilaahay uga rajaynaya inuu addoon saalax ah oo cibaadadii iyo diinta ilaahay u soo halgamay inuu ahaa ilaahay agtiisana naxariistay janno ayaan uga rajaynayaa inuu ahlu khayr ahaa baan ilaahay agtiisa ka markhaati kacaya insha allaahu markaa waxaan halkanna baal tacsiya uga diray ehelkii carruurtii qaraabadii asxaabtii culimmadii dhammaanba iyo dadkii uu ka wada geeriyo uu naga wada geeriyooday waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto inna lillahi wa inna lillahi raajicuun inna lillahi wa inna lillahi raajicuun inna lillahi wa inna lillahi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt dhammaanteen geerida waynu dhadhaminaynaa laakiin ta maanta inugu timi ayaa aad iyo aad iyo aad runtii nafaheenna ugu xanuun badan innaka oo og inay tahay xaq la wada sugayo oo aan qofna dhaafi doonin ayaa haddana maalinba marka uu kaa dhinto dayax ama maxay ahaytoy qof aad iyo aad u qiimo badan aad murugoonaysaa sheekh aadan maxamuud wuxuu ahaa waa taa uu ka soo sheekeeyey walaalkeen cali axmed waxaa iigu horraysay aniga 81 ayaa iigu horraysay 81 wuxuu noo galay masaajidka masa jaamacu maxaadiro noogu galay
aad iyo aad baan ugu qiirooday markii aan ka soo dareeray waxaan soo iibsaday 4 cajaladood oo cajaladihii dhaadheeraa ee la odhan jiray 9ka ayaan 4 xabadood oo cusub soo iibsaday aadanoo markaa nagula ballamay inuu berrito tegayo oo xagga Hargeysa uu qabanayo yaan 4tii cajaladood u dhiibtay waxaan ku dhigay soo duub siirada igu soo duub oo qaaday waxa uu sameeyay Hargeysa markuu tagay 4tii cajaladood buu buuxiyay wuu duubay waxaa jiri jirtay berigaasi ama waqtigii dawladdu ay xidhi jirtay dhalinyarada ee la odhan jiray maxay odhan jireen waxbaa ka dambeeya ee la xidhi jiray ee ninka nashaad iyo dhaqdhaqaaq iyo dacwo lagu arkaba la xidhi jiray ee gurigiisa la baari jiray ayay waqtigaasi ahayd 4tii cajaladood wuu ii sheegay oo wuxuu aan dhameeyay oo meel saa ii yaala ayaa war nagu soo dhaco waxa la yiraahdaa askartii baa idinku soo socoto waa la idin baarayaa inan baa la carartay oo suuligay ku riday baqihii macnihii yar haddii cajaladaha la qabto uu siirada iyo waxaa kaga warramayo waqtigaa iyada ah xadhig dheer ayuu mutaysan jiray ninka muraha noocaasi lagu qabto markii uu dhallinyarada ahaa uu shabaabka ahaa siiradiisu sidaa uu cali u sheegay ayay ahayd isagoo ardaya ayuu sidaa diinta u fidinayay hadduu weynaadayna waa ka war haysaan wuxuu noqday culimmada ninka ugu xaq sheega badan ee aan marna xaqa maxay ahayd kala laabanin indhaha kala laaban ee wixii uu xaq u arkayo ku dhiiran ilaahay mooyaan aan cid kalena kaga baqin ayuu ahaa samafalka iyo wax u qabadka bulshadana waad ka war haysaan lama sheegi karo mid iyo laba toona laguma soo koobi karo waxaynu leenahay ilaahay ha u naxariisto naxariistiisii janno Allah ha siiyo ilaahay darajadiisa kor ha u qaado ilaahay qabriga ha u nuuro ayaynu leenahay ehelkiisiina ilaahay samir iyo iimaan saadiqa ilaahay ha ka siiyo الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى بهدي إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته geeridii naxdinta ahayd ee ku dhacday sheekh aadan xaaji maxamuud oo markaa ku magac dheera aadan siiro aadan siire wuxuu ahaa runtii nin dacwada ku qaatay noloshiisa oo dhan intii uu yaraa ilaa intuu ka dhimanayey taasna kole geerida de waa loo qoran yahay oo qof waliba ilaahay subxaana wa tacaala ayaa u qoray geerida oo ku xukumay kullu nafsin daa'iqatulmowt naf waliba geeri waa dhadhamin laakiin geerida ayaa sii kala naxdin badan oo ta culimmadu way ka duwan tahay ta dadka kale sababtu waa maxay culimmadu waxa weeyaan warasatul ambiyaa waa kuwii ambiyada dhaxlay weeye marka ay culimmadu marato ama ay dhimato ama dhibashadoodu badato waxa soo kordhaya ama markaa beddelaya waa jahli iyo fisqi iyo xumaan baa beddela masalan markaynu eegno culimmadii caalam ku noolayd sida duwalul khaliij culimmadii ku noolaan jirtay oo kale fatwadoodii ay bixin jireen maanta waxaa laga soo qaaday fatwo laga guuray oo waxa beddelay fatwooyin aan ku bannaanayn in markaa laga sheego golayaasha qaar marka xadiis baa nebigeenu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmiga ma siibo siibiduu ka siibayo dadku ama ilowsiinayo laakiin culimmada ayaa markaa dhimata markaasaa dadku waxay yeeshaan madax juhalaa markaasay wax weydiiyaan markaasay u fadwoodaan fatwadaas oo markaa bilaa cilmi ah ama bilaa aqoon ah markaasay lumaan dadkiina way lumiyaan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka calaamaadka qiyaamay ka mid tahay culimmada oo markaa aad ama sardi u dhimata ama markaa meeshii laga waayo marka wax kale odhan kari mayno qalbigu waa murugooda indhuhuna waa ooyaan wax ilaahay raalli geliya waxaan hayno odhan mayno marka aadan iyo waxaanu uga baryaynaa sheekh aadan oo aadan siire ku maganaanaystiisu ahayd ama ku magac dheera ama loo yiqiinay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu qabriga u waasiciyo
ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu kitaabkiisa midigta ka siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkii uu ka dhintayna sabir iyo iimaan inuu ka siiyo ehliyaddii iyo culimmada markaa uu ka baxayba ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaasaynu markaa ilaahay uga baryaynaa. الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وعلى آله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan halkan aan uga daraynaa tacsi qaraabadii iyo ehelkii iyo asxaabtii iyo culimmadii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed geerida ku timi sheekheennii iyo walaalkeen sheekh aadan maxamuud sheekh aadan siiro ilaahay waxaynu uga baryaynaa sheekha in ilaahay jannooyinkiisa waasica geeyo taariikhdiisa waa taa la sheegay dacwadda intuu soo waday waa taa culimmadii iga horreysay ay sheegtay inta uu samafal samaynayay waa taa dee dadka oo dhamme ay ka markhaati kaceen ilaahay waxaynu uga baryaynaa sheekheennii in ilaahay jannooyinkiisa waasica geeyo in ilaahay samir iyo iimaan dhammaanteen inaga siiyo ilaahay inuu qabriga u waasiciyo ilaahay jannooyin waaweyn uu uga dhigo ilaahay waxaynu ka baryaynaa halkii uu ka baxayna in ilaahay inoo soo buuxiyo isagana ilaahay uu jannooyinkiisa nimcooyinka ageeyo saasaynu dhammaanteen aynu ilaahay uga baryaynaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي بام هذا سبحانه وتعالى نوسور تقلي مانتا إن كلا قيب قادنا علماء قبلك تعصيدا ولالكين شيخ آدن حاج محمود آدن سيرو oo runtii ay ka dharagsan tahay bulshaweyntu waxqabadkiisii markhaatina ay ka tahay janaasadiisu wanaagiisii ilaahay waxaan uga baryaynaa marka hore subxaanahu wa tacaala inuu naxariisto in ilaahay subxaanahu wa tacaala qabriga u waasiciyo in ilaahay subxaanahu wa tacaala su'aalaha u fududeeyo ku sugo waxaan ilaahay uga rajaynaynaa khayr fara badan oo uu ka kasbaday adduunyadan in ilaahay kaga abaalmariyo aakhiro waxa taariikhdiisa iga badiyo ka waramay Sheekh Cali Axmed iyo Sheekh Caawil Yuusuf iyo Sheekh Cabdi Wahaab iyo Sheekh Cabdiraxmaan Ismaaciil oo runtii taariikhdiisa si wanaagsan uga waramay kaliya waxaan ku daraynaa anagu inaan u ducayno sheekha macallinkeenii weynaa ustaadkii dadka af Soomaaliya ku hadlo oo dhan agtooda qiimaha badan ka lahaa ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala isagu hooyay oo ilaahay la kulan in ilaahay u naxariisto dadka af Soomaaliya ku hadla guud ahaan gaar ahaan reer Soomaaliland ilaahay subxaanahu wa tacaala ciwad khayr qaba ilaahay ugu bedelo waxa uu lahaa oo lagu tilmaamay sifaad aad u wanaagsan qofka muslimkaana wax markhaati u ah camalka uu adduunyadan kaga tago iyo janaasadiisa ayaa leegaa xusnul khaatima ka muuqata calaamad wanaagsan baa u dhacday markhaati wanaagsan baa u dhacay ilaahay waxaan ka baryaynaa markhaatiga inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u aqbalo annagana ilaahay subxaanahu wa tacaala noo naxariista dabadii samir iyo iimaanna ilaahay naga siiya dhammaan inta af Soomaaliya ku hadasha aad iyo aad baad mahadsantihiin